الحمد لله إلهي بان كحمدنا إنك سو قيب قليي كلان كدينات إن دينتنا معانا سو براروجنا ونسواننا ونسكو نستحينا واتان إلهي ودواننا كل جنويان إذا صلاة المغرب مركاتو كني كل جان waxaa laynoo jeediyey wacdi dhammaystiran wacdigaasi muxuu ahaa waa janaazadii aan ku tukanay weeyaan kafaa bilmowti waacida qofka waana waxaa ugu filan waa geerida dad dhalinyar intaa la eg qaarkeyn ay xafadata kitaabillaahi ay yihiin qaar culamo ayna la joogaan qaar ducaada ayna la joogaanna janaasadaasi ilaahay waa waafajiyey inay ku tukadaan khayr badanna waan u rajaynaynaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid a janaaza la hormariyey markaabay saxaabadu janaasadii bay khayr ku ammaaneen markaabuu nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi way waajibtay markaasaa haddana janaaso kalea nebiga la hormariyey tiina shar baa lagu sheegay shar oo naf xun oo acmaal xun ka shaqaynaysa inay ahayd baa nebiga hortiisa lagu sheegay markaabuu nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi wajabat waa u waajibtay saxaabadu waxay yidhahdeen cumar bnu khadaab radia allahu canhu ayaa yidhi maa wajabat nebi allow maxaa waajibay bal noo sheeg janaasadii horena khayr baad ku sheegteen buu nebigu yidhi janna u waajibtay buu yidhi janaasadii dambena shar baad ku sheegteen oo ayadana naar baa u waajibtay ininkuna markhaatiyowgii ilaahay arlada dusheeda u joogay baa tihiin buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam marka dadkaas masaajidka soo camiray inay wacdiga iyo waanada iyo nasiixada iyo baraarujinta ay dhegaystaan u yimiday ayaa ilaahay waafajiyey janaasada inay haddana salaadeedii ay ku tukadaan waxaan u rajaynaynaa insha allah qofkaas inuu yahay ahlal khayr insha allah dhahada eheladeena wixii naga dhintayna ilaahay waxaan uga baryanaa iyakana inuu qabuurahooga u nuuriyo uu cadaabalqabrigana ilaahay ka badbaadiyo innakana ilaahay khaatimada inoo hagaajiyo ilaahay casa wajalla cibaadadiisuu adduunyadan inoo keentay addoonkuna rabbigiisa laba unbuu ku caabudaa mid saddexaad ma leh laba shay haddii cibaadadeenna laga arko cibaadadaasi insha allah waxay noqonaysaa maqbuula al-ikhlaas cibaadada aada cibaadaysanaysid waa inay kaa noqotaa ilaahay dartii haddaad salaad tukan iyo haddaad soomi iyo haddaad qur-aan akhrisan iyo haddaad ummad wax u sheegi iyo haddaad diin baran iyo haddaad diin bari iyo haddaad dhaqaalahaaga diin ku bixin iyo haddii maaragtaane ummadaada aada waqtigaaga ku bixinba waa inay cibaadadu kaa ahaataa alla dartii wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin ikhlaas camalka qabuulkiisu waxaa asaas u ah ikhlaas camalka labaad ee la doonaya acmaasheenna inaan ku qabanana waa maxay almutaabaca inaan ku qabano dariiqadii nabigeena calayhi salaatu wasalaam ikhlaasku waa laa ilaaha ila allah mutaabacaduna waxa weeyaan waa muxamadun rasuulullah ikhlaasku waxa weeyaan maaragtaanay waa towxiidkii waa laa ilaaha ila allah waa iimaankii mutaabacaduna waxa weeyaan waa cilmigii weeyaan ikhlaasku waa ka ruux weeyaan mutaabacada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam lagu dayanayana waa kal jasad weeyaan sida ruuxda iyo jasadku u kala maarmaynin ee mar walba labadaa iskugu baahan yihiin ayaa cibaadadeennuna labadaasa asaas u ah laba shayna waa hadaf weeyaan hadaf inuu addoonku mar walba labadaa u ishordhigaa khawfan wa tamaca haddaad cibaadaysanaysid labadaa ilaahay waa inaad ku caabuddaa cabsi iyo maaragtaane tamac rajo aada ilaahay naxariistiisa aada rajaynaysid muuminiinta muttaqiinta ilaahay markuu ammaanayuu sifaadkooga ka sheekeynayay
وكي إلهي كو أماني لها هبينكي دينعوغو جيفك كمراغبا إلهي يري يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون تتجافى جنوبهم عن المضاجع هبينكي هل كدتك كلا أي جيفان أيا إلهي أضومه سو هبينكي جيفك كمراغاني إن ير إنتي استحضان بي مركز دنبانا عبادة يطاعد يبريد الله أسوك عان عبادة أي عابد يا إلهينا وحا أساسه خوفا والطمعا إلهي بي كعب سنيان عردي سأي كعب سنيان طمعا إلهي ويكو عابد يانو نحريست إلهي جنة أي ككوتهي بالرجينيان ومما رزقناهم ينفقون با إلهي لوحا كو أرزقنا ويبحنيان maalkooga haddii laga dalbo diinta ku bixiya la yidhahdana way ku bixinayaan dheecaankooga haddii la yidhahdo diinta ilaahay ku bixiya way ku bixinayaan caqligooga iyo cilmigooga haddii la yidhahdo ilaahay dartii u bixiyana way u bixinayaan wixii aan nicmad aan ku arsaaqnayna way bixinayaan baa ilaahay yidhi tabaaraka wa tacaala marka labadaa sifo waa laba sifo oo la doonayo qof kasta oo muumina mar walba qalbigiisa inay ku jirtaa khawf ilaahay caza wajalla ka cabso ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام وكيلها قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحدكم بعمله قيل ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه أو كما قال صلى الله عليه وسلم عمل كي نبي ولا حريرية وعمل كصالحة حق لقوين وسددوا توصية نبي عمل كينا وعمل كينا وحا كتوسيسان طريقة النبي عليه الصلاة والسلام طريقة رسول كان كتوسية وعمل كهدو سنة نبي أو خلافه قرمره عمل كاسلا هاي أقبل مايو مركا عمر كإن لحريرينا وأمر ويان ما هن مرنا تكو مرنا دا مرنا صوم مرنا دا مرنا مساجد كسو حدنو مرنا كبح ماها وحلدون يا الدوام أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل إلهي أكتيس عمل كاللوجع لهي وعملك وأضونك دائمه ولو عملك سحابة يراده مركاب النبي يقول لها قاربوا حريرية النبي يقول لها عمل كينا وسددون التوصية وعمل كينا واحد كتوسيان ثوابك كتوصية اتباع النبي عليه الصلاة والسلام إلهي كعبدا واعلموا أقاد النبي يقول لها إنه سنمتكينا عمل كيسا كنا بدقلين قيل ولا أنت يا رسول الله يا رسول الله كل أذيك النقطة مياه markaabuu nabigu yiri walow anigana ha noqotee camalkayga aad ku nabad galaysaa is orani maaye naxariista ilaahay baan rajeenayaa inaan ku nabad galo buu rasuulku yiri wa nabiyullaahi muhammad alayhi salaatu wassalaam ayaa maaragtaane sidaa u cabsoonayay habeenada ka mid ah nabigu sallallahu alayhi wasallam markuu qiyaama leelkii u kacay aayadahan ugu dambeeya suuratu aali cimraan baa nabigeena ku soo degay aayadahaasi waxay cadaynayaan ilaahay cadamadiisa bayaaminayaan bilaal baa markaa nabiga u yimiday markaa buu yaa rasuulullah salaadii baa lagu sugayaa ee soo kac markaasaa bilaal wuxuu nabiga indhihiisaan fiiriyay ilinta nabiga ka da'day ishiisa meeshuu nabigu ku sujuudayay ilintu qoysay markaasuu yaa bilaal xalaytoo aayadahan quraanka ayaa dushayda ku soo degay waylun liman qara'aha walam yatadabbar waxaa hoogay oo khasaaray buu nabigu yiri aayadaha quraanka ninka akhristay ee tadabburi waaye tafakkur iyo cibro ka dhex ku cibro qaadan waayay kaasaa khasaaray buu nabigu yiri alayhi salaatu wassalaam inna fi khalqi as-samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ardi ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار حبسي بو نبينا إلهي كو عبدا يا حبسي عليه الصلاة والسلام إمام الأنبياء حديء وعبسون وليه عمل كيغا كو تلقى مايو لكن حريست إلهي ما كو تلقى ليا إمام الأنبياء دعادي سأقوب النيد نبينا لقى وريو كو دعاي سنة وحي هاي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك الله قلوبته بن آدم كجدنا يوم إله قلبك حق كسب هذه دعاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام أي أهي دعوينك وقب بدنا نبيين وكد عيستي دعاء نوال وريي يا دعاء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
ودعوينك أقبضا النبي عرب كيس كسو نقنقونيسي إمام الأنبياء نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام والنبي قرآن كإلهي وكشي يقولي ومن الليل فتهجت به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وحلو بلن قاد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام مقام المحمود ما شاء قدر جد الرئيس الجنة إن إلهي إساق أودياريي وكي نبي لها آذانك مركات مغليسان فقولوا مثل ما يقول المؤذن مؤذن ككدب هذا النبي لإريد أوليه ثم صلوا علي آذانك مركو دما يا مؤذن كنا يقول صلي أبو النبي عليه الصلاة والسلام لأن مركا إلهي وسيلة ويدية من سأل لي الوسيلة حلت له شفاعة نكا وسيلة إلهي ويدية شفاعة إذا أيا حلالو بيسا وسيلة أيا نبي معنى يو حيري ومنزلة في الجنة ومنزلة جنة دحدة إذا كنت الله لا تنبغي إلا لعبد من عباده وأرجو أن أكون هو أبو النبي عليه الصلاة والسلام ومنزلة أقصر رئيس جنة الله قالوا يانت أقود درجة الرئيس أدومها إلهي كمدا أمبا قلي دونا وحنا رجينا يا أبو النبي لنا نهانقو أدون كاس نبي قاس مقام كيس إلهي القرآن كأوكو شيغي إساقنا ما ركتاني أحاديث صحيحة إنه قعد منزلة إله ديس وكل يهي أيا دعاء ديس أغبضا وكد عيسى أي نقطي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك مركع خوفا وطمعا إنهم كانوا يصارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين بإلهي آل زكريا ري زكريا عليه السلام إلهي مركو أماني وحكو أماني إنا يا هايانك وخيرك أدقدقا عبادة أدقدقيان صلاة أدقدقيان وناق السميستي سي أدقدقيان إلهي الرالي قلنتي سي أدقدقيان ويدعوننا رغبا ورهبا مركينا عابديان إنا بريانا وحين بريان با إلهي جعيل إنا بريان عبسي إنا عابديان إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين با إلهي كوا أنك نوخش عسن بيهايين با إلهي dadka ilaahay uu ammaanay ee quraanka lagu cadeeyay ammaantooda sifaadka lagu ammaanay waxa kamida taacada u degdegayeen ilaahay taacadiisa u degdegayeen ilaahayna waxay ku caabudayeen labada sifay ku caabudayeen cabsi iyo rajo goorma muuminka laga rabaa cabsida goorma rajada laga rabaa cabsida qofka muuminka waxa laga rabaa waa intuu caafimaad qabo weeyaan intaad nooshahay ee caafimaadka ilaahay ku siiyay ee nabadgelyada aad haysatid ee naftu ay kugu jirto markana laga rabaa inaad cabsi ilaahay ku caabudo rajadana goorma la rabaa inay badato rajadu waxa la rabaa inay qaalib noqoto waa marka sakaraadku ku qabtay ajashu ay kugu soo xaadirto markaas la doonaya qofka muuminka inuu yiraahdo ilaaha aanu tagay waa ilaah kariima waa ilaah raxiim aanu tagaya rabbigay wanaagina kala kulmo mooyaane wax xun kala kulmi maayo waa inuu qofka muuminku markaa yiraahdo laakiin inta caafimaadka haysid ee lixaadka ilaahay ku dhamaystiray ee noloshana aad haysatay talaabsanaysid haddaad noqoto rajo ku nool dad macsiyo haddana isagii oo qofka ku jira hadduu ilaahay naxariista rajeeyo ka warrama ma soconayso adoo ilaahay caabudaya oo sadaqada bixinaya oo soomaya walladina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajlah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khayrat wa hum laha sabiquna ba ilahay dadkii wanaagsana waxa ilaahay ku amaanay way soomayaan salaaday la imanayaan zakaday bixinayaan waxaan ku arsaaqnay bay dhiibayaan xubnahoogay nagu adeecayaan ba ilaahay yiri iyagoo hadana qulubtoodu ay cabsoonayso oo isleh talow acmaashaasi bilo ilaahay kama aqbalinba iyagoo cibaadaysanaya ay hadana cabsoonayaan iyagoo taqwo diilay hadana ilaahay ka baqayaan iyagoo safka hore ku jira ilaahay ka baqayaan iyagoo laylan wa nahaaran ilaahay taacadiisa ku dadaalaya ay hadana cabsoonayaan rajadu goorma la rabaa qofka muuminka inay u timaado
وأمرك الله قبطال الربعين هذا هي ربي وكريم. ابن مسعود رضي الله عنه سكرات مركو أورذي عثمان بن عفان بصوب بغضي مركاسو ويديو كويري عبد الله يو محاد أباهنت هاي بليشك بوكيد هل كيكو قدرا ماذا تشتكي محاد كأشكتوني سامانت بليشك وهل كيكو قدرا وعلي ماشي يقدرا عثمان ومكو شيقا ذنوب تيدا يقدرا بولي ذنوب تيدا. ابن مسعود مركابو كودي فماذا تشتهي هذا محاد جعشا بلنو شيء إلى قفكم مركو حنوسين هلا بدنا لو ويديا موقت ورنيو هالكيكو قدرا والله قاهيا هي النفس دادو محيد دونيسا نفتادو محيد دونيسا إنك ما أنت قفك لها هالكيكو قدرا هالكو شيء لها ورا الكيك شيء لها هالكو قدرا لقاها يوم بفرتكو قبل هالكابا اللي قاهيا هالكابا اللي قاهيا ككلنا وحولي دكتور بانكو يودي يسوق ما دكتور بان نفكو سو علينا ابن مسعود وحو يري مركو عثمان وكو يري هالكيكو قدرا وحولي ذنوب تيدي با يقو درن بودي مانت او دافay marka عثمان وحو يري hadana maxaad jeceshahay bali sheeg naftaadu maxay doonaysaa marka buu rahmat rabbi naxariista rabbigay baan doonaya buu maanta yaan doonaya naxariista rabbigay طمع waxa la doonaya طمع inuu bilaamo marka aad hatta qofku marka uu xanuunsan yahay la dul tago waxa sunnah in la yiraahdo la ba'sa tuhur la ba'sa alayk dhibaato kuma saarno ha cabsan ha walwalin xanuunkan miya waa lagugu meydhaya dambi dhaafaad ka helaysa ilaahay baad ugu dhawaanaysa darajaadkaaga kor lagugu qaadaya waad ka kacaysa salaama insha Allah dhibaato arki maysid waa in qofka la yiraahdo لأن مركا قفك مركا ودمنا يانا ودشي سواحا لقول لقنا توحيدك لا إله إلا الله لا إله إلا الله ده لما يداد ده تدادي ولا إله إلا الله ده تدادي واحد لقى يا شيطان كونوا سكة الأوتو السوق يدادو وما قال بانه مسلم بانه وعروا وقفوا كل انتبه دونك سقوا عرونا لكن لقنوا موتاكم لا إله إلا الله كينا نقدمنا يبو نبي يري وحاد الله قنتان لا إله إلا الله مقاشية ويان isaga dushiisa ku dhahada kelmadaas soo markaa kaaga soo dabaceliyay isaguna kelmadaas haduu kelmada qofku markay ka baxaysa naftiisu ay noqoto kelmadaas waa kii nabigu lahaa jannu galay man maata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa allah dakhala aljanna wa fi riwayatin man kana akhiru kalamihi la ilaha illa allah dakhala aljanna haduu u dambaysa qowlkiisa kelmadaasina jannu galay buu nabigu alayhi salatu wasalaam jannadu markaas waa shayga la doonayo qofka adduunyada intuu joogo cibaadada ilaahay aad caabudaysa labada ku caabud tamac ilaahay naxariistiisa rajee oo jannadiisa rajee oo dambidaafkiisa rajee oo maghfiradiisa rajee oo ridwaankiisa rajee cabsooyo dhinaca kalena ilaahay caaradiisa ka cabso oo cadaabkiisa ka cabso oo waxaad mar walba sor dhigtaa ilaahay aad u tagaysid waa kariim naxariis badan weeyaan عمل كان مركا أنقبنينه مر والبا واحد كوبنين يسلب هذا الشيء معاصي مركا نقطنا نفط واحد اللي قاعد بسيا عذابك إلهي عمل ونكسن أو طاعة مركا نقطنا نفط واحد اللي هردق الثوابك إلهي عمل كان وكاسين يا قف يلا هردق النفط الله هذا أصلا بأدوك يلا معروف يا منكر معروف وواحد وناقة شريعة إنك أمر سنة التي مهدد معروف كمركا القبانة سنة جنة لسردقا وحا منكر شريعة أي كار ريبتي مركا النفتي الشيطان كودا أي كليهينا عرض إلهي عذابك إلهي بالهردقا نفت لأن جنة إلهي مركا ينوب باللنقا دي جنة الله إنك يدي أمين هذا جنة ودار مقع بدن بقرآن كإلهي كشاقي إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا إن للمتقين في جنات النعيم إن للمتقين في مقام أمين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا قرآنك إلهي تبارك وتعالى وعلى
انت نارت وكورم إلا أكبر إلى هاي جنة كورم هذا يسلكين آياتها قرآن كمرجي لباري آخرة كورم يا لفظك وكيم دي الآخرة وعلى وقادين بقول يشان يتوان قربا إلى هاي الآخرة الدنيا مرجي نقطنا لفظك الدنيا آياتها قرآن كوحى كيم دي مقعدة بقول يشان يتوان جارون marka jannadu waa daar ilaahay tabaaraka wa taala bini aadamku waxay ku raaxaysanayeen oo dhan lagu dhameystiray iyana galaya innal abrara la fi na'im dadka adduunka dusheeda ilaahay kaga cabsada ee ilaahay kaga baqa ayaa ilaahay jannada u diyaariyay daar salaam daarta nabadgelyada daarul khuldi daarta waaritaanka دار الحيوان با إلهي دارتي نولشا وصاحبك أهي سديد مقع با قرآن كان لقو شيئا جنة وإلى إلى سديد مقع جنة عدن جنات النعيم جنة الخلد جنات الفردوس وكن نبينا لها عليه الصلاة والسلام إذا سألتموه فاسألوه الفردوس هذا إلهي ويدي سنيسان وضباه أشيغان إسان بنبي قيدي فردوس إلهي ويديستا فإنه أعلى الجنة جنويك أيضا أقص الرئيسة وأوسط الجنة أيضا أنا أقبر تميسم نبي قيدي وفوقها عرش الرحمن سقف جيغو وحا هذا عرش الرحمن كا ومنها تتفجر أنهار الجنة وبيالك الجنة مرودنا آيات كبر قمام رسولك يدي فردوس الأعلى الله ينقيه فردوس تدكي جنة قيمة هيك قرتي وحا كمدها صحابة محمد هويني مدو أيا نبينا أوتم يدو مركا كعبا يسحنون كلا إذا قلل كصوحدة صوحتانك ودي عجرتي markaas nabiga u timid alayhi salaatu wasalaam ya rasuul allah waan suuxabay ku tir waan dhacaa waa xanuun aad u daran weyn xanuunkaasi allah inaga badbaadiyo dadku hayaan allah ka qaado waa xanuun qofku meelsha uu ku dhaco uu ka warqabin uu miir daboolsamaya gabigiisuba maankiisoo dhan ba tagaya markaas nabigeena u timid ay tiri inni usra wa inni atakashaf fad'u allah ta'ala li an la atakashafa ya rasuul allah jidadka ayaa ku dhaca waan suuxa dadna markaana marada ayaa iga baylahanto waa lay arkaa ilaahay ii weydiibay tiri xanuunka ilaahay inuu iga qaado maraduna ay iga baylahmin markaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu in shiiti sabarti walakal janna haddaad doonto janna ayaan kugu haddaad doonto waad u sabri xanuunkaas oo janna ilaahay kugu siin doonaa innamaa yuwaffa as-saabiruuna ajruhum bighayri xisaab dadka adduunyada dusheeda ku sabre ku adkaysta balaayadii masiibada la soo darista thawaabkooga janna ilaahay ka dhigaya أجركوغا بلا حساب إلهي سينيا هذا دونتنا وانكو دعين إلهينا عز وجل إنو كعافية حنون كابان كو بري مرقابيتنا وانسكن نغون إيكادي لأنه ويسون نغوتو نبي أوتم دي مرقابو نبي عليه الصلاة والسلام وحي كتري يا رسول الله وانسكات كيسانيه إلهي الجنة إيويدي بي كتري بس اسكدا مربا هذه جنة لغو هلايو هلقا كدف لكن مد إلهي إيويدي meeshaan doon haas kaga dhace marada inay iga baylahmin bas iyadoo miyir daboolantay oo maankeegii uu tagay ayay xishoonaysaa ay cawradeeda dhowranaysaa maantana innaka waxa laga yaabaa gabdhaheena qaarkood iyo maaragtaane gabdhahayna la dhashay qaarkood inay gabadhu jirkeega halka ugu qurux badan ay istiraada ragga tusuha kugu soo eegtaan waana calaamaatu aakhir az-zamaan nabiga sheegay laba qola adduunka iimaan buu nabigu yidhi soo socota qolab jeeda la wato dadka dariiqyada intay qabtaan ku garaacaya iyo gabdha maaragtaane ismoodaya dhar inay xidhan yihiin wada qaaqaawan buu nabigu yidhi kuwa jannada gali maayaan jannada inay galaan iska daaye carfiga jannadana urini maayaan carfiga jannadana waxaa la uriya udgoonkayga 500 oo sano marka jannadu ku jirto ayaa udgoonkaygu qofka soo gaadha labadaas sinfi buu nabigu leeyahay hadda arki maaye
ورق بدد بي وطان وددك دريقة انت كحيان بي أي لا دعيان oo gardarray qofka u garaacayaan iyo gabdha maaragtaan dhar inay sitaan bay ismoodayaan kaasiyatun caariyaad baa nabigu yiri dhar inay xidhan yihiin bay moodayaan dharna ma xidhno way qaawan yihiin baa nabigu yiri maa'ilatun mumilat jidadka markay marayaan way isqalqaloocinayaan wixii meelaha rag ag joogana way qaloocinayaan buu rasuulku yiri sidaas ku qalqaloocinaysa raguna sida uu si eegayaan uu la qaloocsami إذا بقول ورها إيجنا عندها قلابو وزيناها للناظرين بقول لا حول ولا قوة إلا بالله جنة قال ما يا أبو نبي يقول كواسي عرفك جنة هل ما يا جنة أنا مركي عرفك وح الله لا شم بقول أصلا مركي مش لا صعد قفك وجرت قبل المؤمنات يا صحابية دم مدو ayadoo maankaygi iyo miyirkaygi uu daboolmay ayay ka fikiraysaa inay cawradeedu aysan baylahmin markaa bay nabiga ku tiri xanuunka haddii janno ilaahay igu siinayo iska daa laakiin meeshaan doon han iskaga dhace maradu inay iga baylahmin bas inta ilaahay weydii xishoodku fiicana haweenkana ku si fiicana waa u duceeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam ibn Abbas allah raalli ka noqdee ayaa zamankii dambe taabiciintii dadkii markaa nabiga aanan soo gaadhin ee saxaabada nabiga soo gaadhay buu ku oran jiray ala uriika imra'atan min ahli aljanna haweeney ahli aljanna ama ku tusaa markaa bay oran jireen ha haweeneyda madow ee halka maraysa waa ahli aljanna buu oran jiray ibn Abbas Ataa ibn Abi Rabah buu tilmaamuu ka yidhi Ataayow haweeneyda madow soo ma arkaysid ha waa ahli aljanna weeyaan haweenka jannada galaya aad bay u badnaayeen maalin gabadh baa tiri 10 mubashiriina bil janna baa la sheegay hawa dumarkii jannada galaya hama la sheegay khadija radiyallahu anha al mu'minin mubashira bil janna kaligi jibril alayhi salam ayaa samada uga yimiday markaa buu nabigeena u yimid alayhi salatu wassalam wax kala masido allah salaamku salaam ka wada ayuuna u sida khadija al kubra radiyallahu anha al mu'minin buu sida oo yiri ya muhammad المؤمنين خديجة الله سلام قاسو سلام أيي وعنا اللي يقول بشارة قصر الجنة كويا لا إله إلا دياريه أنس بن مالك رميصاء أم رميضاء أيضا ومبشرة بالجنة ونبينا عليه الصلاة والسلام أيا كويري سليمي حليتو لجنة أيان قالوا إلهي إتصي أضا يهر سعدنا وانكو أركب رسولك كسو يري فاطمة إن محمد عليه الصلاة والسلام وأيضنا ومبشرة جنة والله بشاريي ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام يري فاطمة بنت محمد سيدة نساء أهل الجنة إن أنت إذا فاطمة برسولك يري هوينك أمد نبي محمد الجنة قالي دونا وقبضه يقود رجس الرسول أكبر وقبضه برسولك سمية رضي الله عنها يدنا وأهل الجنة ويدا إن كيدي عمار مركو النبي قد دل يمدي أيكم مقالة مكة دقح ذي يجقع يقلقوا عذابا يو وأمرك الدين غريب كهيدا مكة لا عذابا يا مؤمنين إيه قريش أي عذابا صحابة رسولك أيو النبي قد كريم دي سمية وأم عمار هي أذيك ياسر هي إن كيدي عمار ولا عذابا يو مركا سيدادين الدهر هكذا يا رسول الله سنتك أوردن أنكم أدبك يا عذاب كابا كجرينا مركا أبو النبي يقول صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة صبر أبو النبي يقول أتكيستا أبا الكينو إنك واجنة ويانا هذه الجنة أي مغلان وحلي وحد دباتة الدنيا لسو درستون ويهالمامين يكو way bogtaa haweeneyda madow eeg xanuunkay qabta eeg way dhacaysaa suuxdin bay leedahay laakiin markuu nabigu ku yiri hadaad sabri lahayd janna ilaahay kuugu bedeli lahaa iska daabay ku tiri bas halkiisa ku dhaaf Rabi'ata bin Ka'b al-Aslami radiyallahu anhu khadimkii nabiga nuuha alayhi salatu wassalam ahla sufihi magaalada Madiina
qareen iyo qaraabo aan ku lahayn nin ka mida ayuu ahaa masaajidka nebigeenna mu'akharadiisa dambe ayuu deganaa ahla sufuuh waxay ahaayeen rag maalmo dhan ayay afkooga aynan heli jirin cunto ay geliyaan abaa hurayra ka mid ahaa markay nebiga ag fadhiyaan baa la yidhi xataa cawradoodu sidaynan u muuqan marada yaray sitaan ee guntiga ee hoosta lagu xidho ayay labada lugood intay qabtaan bay isku xajinayeen baa la yidhi iyagoo cawradooda nebiga ka qarsanaya dhar la'aan cunto la'aanna nebigaa u yeedhay maalin ahlu sufaha laba timiruu nebigu siisiiye laba timira maanta aduma ku qadayn lahayd barwaaqaan ku jirnaa inaku barwaaqo nicmad shukrigaa inagu yar maanta laba timiruu nebigu u dhiibay ahlu sufihi war abaa hureyra labadan qabso war rabiic oo labadan qabso war fulaan oo labadan qabso abaa hureyra allaha raalli ka noqday wuxuu yidhi xabadna waan cunay markiiba oo waan gaajoonayay xabadna halkaa guntiga ayaan ku duubtoo ku laabay buui markaabuu nebigu igu yidhi lima rafacta haadihi ya abaa hureyra xabaddan timirta halkan aad gelinaysa maxay tahay cunde markaasuu yidhi hooyadii baan u geynayaa buu ka yidhi markaa buu nebigu yidhi hooyadaana annakaa kuugu dhiibayna iska cun buu ka yidhi abaa hureyra waa ninka maanta xadiiskiisa markaad maqashaan aad ku raaxaysanaysaan xaadiista aan inta badan aan sheegayno o dhan isagaa wariyay inta badan laakiin uu sabray uu tabcay diinta tacab buu geliyey diinta uu u gaajooday diinta uu u huray wuxuu jeclaa inuu magaalada madiine ka xogsado uu karayay laakiin wuxuu gartay jawaahirta nebi maxamed afkiisa ka soo baxayso ummadda u reebaya ilaa qiyaamaha rabiica markaa raggaasuu ka mid ahaa rabiicata binu kacb alaslami radia allaahu canhu wuxuu yidhi isagaa ka sheekaynaya habeenkii markuu nebigu soo kaco calayhi salaatu wasalaam ilaa aqalladu markaas zamankaasi aqallada dhexdooda busqulo lagu xaajoodo iyo tuwaaleed ma lahayn bannaanka magaalada madiina loo bixi jiray magaalada madiinana bahalo iyo baholo badan bay lahayd markaa buu yidhi rabiica nebiga ayaan u soo qaadi jiray buuhi markaa cadaygiisa iyo biyaha weysadaan usii diyaarin jiray buuhi habeenkii madiinat almunawara marka dhulku uu yahay xilliyadanna qabowgeega waa cadi maha qabowgeega markaasaan u keenay nebiga biyihii weysadii iyo cadaygii daedna xaajadiisii buu nebigu soo gutay intaa nebigaan la socdaa buuhi waan way ilaalinayaan nebiga moogtahay sal alla alay slam markuu nebigu soo noqday buu arkay rabiica oo aad u dhaxmoonaya oo gaajoonaya markaa buu nebigu ku yidhi rabiica salni maanta waxaad doontay weydiisay buuhi caawa nabi maxamed baa hadalkaa leh ku salliya yaa rabiica salni yaa rabiica waxaad doonta caawa sheego yaa leh hadalkaa muxamed calayhi salaatu wasalaam waa nebigee waa nebi ducadiisu mustajaabo ay tahay waa nebi awood u yeeshay geed inuu u yeedho geed buu u yeedho geed waa nebi ilaahay uu siiyey ta'yiidaad iyo mucjizaad dameerka hadalkiisuu maqlaayay nebi maxamed dameerka waa nebi ilaahay awood wuxuu geliyey hadduu odhan lahaa buurta ilaahu halkaa ka qaad ilaahay buuraha uu ka qaadi lahaa magaalada maka baa layidhi waa nebi rabiicow sheega caawa waxaad doonaysa waa isku noqonay iikaadi nebi allow halkaa buu fadhiistay ninkan uu nebi maxamed ku leeyahay baahidaada caawa ii sheega waa nin magaalada madiine aqal kuma leh jago kuma leh qaraabo kuma leh qareen kuma leh meeluu wax ka cuna ma haysto hadiyadda nebiga loo keena ayuu nebigu ahlu sufahna uu wax ka siiyaa maalmo dhan baa soo wareega 3 maalmood 4 maalmood 7 maalmood calooshooda cuntay geliyaan ma helaan xabad timira hadday helaan bay iyo abaal ku qabaan ninka baahida ay hayso ayaa nebi maxamed fursad intuu siiyey uu ku leeyahay yaa rabiica waxaad doonta caawa sheego salli ii sheega caawa waxaad doonaysa markaasuu u yimid oo wuxuu yidhi as'aluka muraafaqataka fi ljanna yaa rasuul allah wax kale oon sheeganayaa ma jirtee inaan jannada kula noqdo rafiiq ilaahay intaa ii weydii buu ka yidhi meel baa u caddayd iyaka inaan jannada kula noqdo rafiiq bas kugu arko kula saaxiibo
kula fadhiisto kula jaar noqdo ku arko intaa ilaahay ii weydii say nebiga u jeclaayeen cajiib indhahoogay ka jeclaayeen ubadkoogay ka jeclaayeen naftooday ka jeclaayeen waa kii nebigu cumar ku lahaa markuu cumar nebiga ku yidhi yaa rasuul allah dadkayga iyo dadka oo dhan iyo waxa adduunka yaallo oo dhan adaan kaa jecelahay naftayda mooyaane markaa buu nebigu yidhi cumarow weli weeyaan waa weli ilaa aad naftaada iga jeclaato weli iimaanku qalbigaaga ma fadhiisan ma naftaydana haa naftaadana cumarow ku dar wallaahi nebi allow naftaydana waan kaa jecelahay al'aana yaa cumar buu nebigu yidhi haddaa iimaanku qalbiga ku galay buu rasuulku ku yidhi hadduu gaadho iimaankaagu halkii la doonayey nebigay jeclaayeen calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu ka fikirayaa adduunyada maaha waa aakhiro yaa rasuulallah jannada rafiiqan kula noqdo bas markaa buu nebigu mar labaad buu u qabasheeyey wuxuu ku yidhi aw hayra daalika taatu aan ahayn oo kalena sheego haddana markaa buu yidhi huwa daaka muraad kale anu ma lihiye muraadkaygu waaba intaasuu yidhi markaa buu nebigu ku yidhi faacinnii calaa nafsika bikahrati sujuud waa hagaag rabiicow adiguna waxaad igu soo caawisaa sujuudda soo badsa buu nebigu ka yidhi nebigaa janno ii bishaareeyey ha ku gaabin cibaadadii ilaahay bal soo ziyaadi cibaadada daacadda ziyaadi salaada ziyaadi khayrka ziyaadi u dhowaanshaha ilaahay aad u dhowaanayso sii ziyaadi anigana miyaa taa aad ii weydiisatay waad ku dadaalayaa inaad iga heli doontee adiguna sujuudda igu soo caawi buu nebigu ka yidhi ayaku jannaday fahmayeen jannadu waa daar nuuceeya waa daar ilaahay baa dhisay tabaaraka wa tacaala dhagaxda laga dhisay buu nebigu sifeeyo wuxuu yidhi labinatun min dahabin wa labinatun min fidda labadan dhagaxee jannada laysduldhigee laga dhisay midna dahab buu ka samaysan yahay buu nebigu yidhi midna lacag buu ka samaysan yahay ahlaljannuhu jannada dhexdeeda buu nebigu yidhi way cunayaan way cabbayaan wakhtigay cunayaan xad ma leh wakhtigay cabbayaanna xad ma leh way cunayaan way cabbayaan ma saxaroonayaan kaadi yeelan maayaan qandhuuf iyo siin iyo khaakhatan midna yeelan maayaan buu nebigu yidhi cuntada maanta adduunyada ugu macaan haddaad cunto saacada kadib halkeed geynaysaa baytalmaygaad geyn aqalka adduunyada ugu qurux badan bilaa baytalmay ma dhici karaa inuu noqdo waliba aqalku ka sii qurux badan yahay ee si casriga loo dhiso ayaa tuwaaleedkiisana si casriga loo dhisaa iminka carabtuna tuwaaleedku waxayba u taqaanaaba bayturaaxa aqalka raaxada u yaqaanaanba baad cuni waa inay ku dhaaftaa cunnada adduunyadu laakiin jannada dhexdeedu waa cajiib cuntada jannada buu nebigu yidhi waa la cuni waa la cabbi laa yataqawaduun walaa yamtakhituun walaa yabuuluun walaa yadfuluun baa nebigu yidhi cuntada jannada waa la cunayaa waa la cabbayaa sharaabkeega maaha saacado waxa la cunayo boqolaal sano kumanyaal sanaa la cuni doonaa cunnadaa la cunaya buu nebigu leeyahay saxaro noqoni mayso kaadi noqoni mayso duuf iyo siin iyo qandhuuf iyo kaakhatana noqoni mayso oo haddaa maxay noqonaysaa cunnadii waxay noqonaysaa buu nebigu yidhi wuu daacayaa qofku daacada adduunka markaad daacdo islaantaada dhan baa ku odhanaysaa war daacadaada qarmuunkeyga xaggaa noogala jeeso soo ma odhan karto war maantii maxaad soo cuntay waxbaa kaa uraya xagga uka ya allah daacada jannada buu nebigu yidhi waa miski udgoon la ursado cadarka ugu udgoon ee jannada dhex yaalla ayaa calooshiisa ka soo baxaysa qofka muuminka biyihii iyo sharaabkuu cabbayay me ilaa jannada waxaa la sheegay webiyaal dhan inay durdurayaan webi caanaa webi malaba webi khamriya webi biyoah intaabaa hoostaada maraya markaasaad cabbaysaa haddaad maanta cabtid markaaba baytalmeyga ayaad u baahan oo kaadi baa ku qabanaysa habeenkiina 2-3 jeer buu qofku kacayaa xilligu dhulku qabow yahay ahlaljannaha miyaa may kaadi yeelan maayaan buu rasuulku yidhi oo sharaabkii cabbeen muxuu isku bedelayaa waxau noqonayaa buu nebigu yidhi dhidid buu noqonayaa dhidid cunnadiina daacay noqotay udgoon
sharaabkiina wuxuu noqonayaa dhidid buu noqonayaa dhididka adduunka waa qarmuuna waa la iska maydhaa dharka aad ku dhididayna waad iska bedeli laakiin jannada dhexdeeda dharkana la bedeli maayo wajigana la maydhi maayo ahluljannati juradun murad kuxla laa yafnaa shabaabuhum walaa tablaa hiyaabuhum baa nebigu yidhi ahluljannati juradun murad ahluljannuhu gadh yeelan maayaan timo dhogorana yeelan maayaan xaggan walaa meel kale timo badanna yeelani maayaan gadhna yeelan maayaan buu nebigu yidhi kaxlaa indhahoogana waxaad mooddaa indha kuxulin loo mariyaad mooddaa bal wayba ku samaysan tahayba laa yafnaa shabaabuhum dhallinyarnimadoodu ma gabowda buu nebigu yidhi 33 jir wa fii riwaayatin 30 jir baa lagu joojinayaa ama 33 jir intaa ka yaraani maayaan mana dhaafayaan laa yafnaa shabaabuhum walaa tablaa hiyaabuhum dharkay xidhaana ma baaliyooba buu rasuulku yidhi jannada dhexdeeda suuq baa ku yaalla suuqa aljumuca la yidhaah suuqaaba helaljannuhu iskugu imanayaan buu rasuulku yidhi fatahubbu calayhim riixun min ashimaal dabayl ayaa xaggaa kaga iman doonta dhinaca bidix dabayshaasaa wejigoogii ku dhifanaysa suuraddoodii bay bedilaysaa buu nebigu yidhi kalarka dharkana way bedilaysaa iyagoo kalarkay xaafadda kaga tegeen dharkoogu kalarkii maaha wejigoogu kalarkii maaha ayay ku soo noqonayaan dumarkoogii xawraadoodii xuralcayntii baa odhan doonta war markaad suuqa nooga baxdeen nagu soo noqoteen dharkiinni waa isbedelay kalarkiinni waa isa soo bedelay waa ini sidee markaaba iyakuuna odhanayaan wallaahi annakana intaan niga maqnayn waa layni sii bedelay ininkana suuqa adduunyada markaan tagno maxaan kala soo noqonaa qurux mise foolxumo boosboos baad kala soo noqon iyo cawlaan iyo siigo iyo dhafoorkaaga dhaf baa ka muuqanaya markiiba suuqa jannada ku yaallana qurux baad la soo noqon qurux dharkaagu baaliyoobi maayo dhallinyarnimadaadu gaboobi mayso mitir iyo badhna la ekaani maysida waxaad noqonaysaa dhararkii nebi aadam calayhi salaam 60 diraacan fi samaa wa 30 mitir baa lagu qiyaasaa ma gaboobaysid ma dhimanaysid ma bukoonaysid ma baahanaysid baytalmay geli maysid ma seexanaysid daraariya habeen waad iska ciyaariyo tuman insha allah dhahada qulu insha allah haweenka jannada nabigeennaa ka sheekeeyey calayhi salaatu wasalaam nisaa aljanna haweenka jannada muuminka loogu diyaariyey buu rasuulku yidhi mid ka mida iyaka haweenka jannada muuminka loogu diyaariyey mid ka mida buu nebigu yidhi hadday adduunyada u soo bixi lahayd oo adduunka loo soo saari lahaa udgoonka jidhkayga ka soo baxaya buu nebigu yidhi ayaa samada iyo cirka isqabsan lahaa buu rasuulku yidhi gabadha muuminadda ee jannada galayse muuminka jannada loogu diyaariyey hadday adduunyada u soo bixi lahayd oy dhoolla caddayn lahaydna iftiinka iligeyga ka soo baxa ayaa cadcadda iftiinkayga shiiqin lahaa buu rasuulku yidhi xawralcaynta ka mid a faryaradeedaa yar buu nebigu yidhi hadday adduunyada u soo saari lahayd ragga adduunka ku nool oo dhan baa fitnoobi lahaayoo biyuhu ka iman lahaayeen buu rasuulku yidhi marada yaree madaxa ku sidato waa masarka yar madaxa ku sidato ayaa adduunyadoo dhan waxa dulyaaloo dhan ka khayr badan buu rasuulku yidhi muuminku jannada markuu galana muraayad u baahani maaye xawralcaynta dhuunteedu isku daawanayaa markaasuu isku eegayaa wejigeegu akhrisanayaa waxaa ku qoran naxnu raadiyaatu falaa naskhad annaku waxaa nahay kuwa ninkooga raalli ka ah oo weligood aanan cadhoonayn wa naxnu alkhaalidaatu falaa namuut annaku waxaa nahay kuwii weligood jannada ku waaryaayay ee dhimasho aan u saaxiib noqonayn wa naxnu naacimaatu falaa nab'as annaku waxaa nahay kuwii alla u nicmeeyey balaayo iyo buus iyo dhibaato aanan arkayn tuubaa liman kaana lanaa wa kunnaa lahu ka noo ahaada nin een annakuna xaasu noqonnaa liibaane bay leeyihiin ibnu cabbaas allaha raalli ka noqday isaga iyo aabihiibe muuminka banka qiyaame kitaabkiisa gacanta midig marka laga siiyo
واتن آيات القرآن كإلهي كشيغي وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا ehelkaagu kuwan adduunka aad ku haysato maaha ehelkan adduunyada aad ku haysato ibtilaa baa lagu siiyey ikhtibaar waa lagugu eegayaa inay ilaahay taacadiisa ku seejiyaan iyo inaad taacadda ilaahay aad ku fulisid baa lagugu eegayaa laakiin ehelkaaga runtu waxa weeyaan waa ka maalinka qiyaamaha muuminka gacanta midig kitaabka marka laga siiyo ee xisaab yaroo fudud la xisaabiyo markaabuu u gadoomayaa baa ilaahay yidhi ehelkiisii oo sugaya ayuu xaggooga u noqonayaa buu ilaahay yidhi albaabka jannaday joogaan ay ku sugayaan baa la yidhi albaabkay ku sugayaan kitaabkiisii buu gacanta midig ka qaatay xisaab fudud baa la fudaydiyey xisaab fudud waa maxay lama baadhbaadhin buuggiisii lama baadhba haddii la baadhbaadho waa khatar ilaahay baa asturay oo naxariistiisii buu hubiyey addoon baa lala soo keliyoobi doonaa banka qiyaama buu nebigu yidhi oo la odhan doonaa adiga rabbi baa kuu yeedhaye soo kac markaasaa ilaahay caza wajalla sitrigiisaa ilaahay huwini doonaa markaasuu ilaahay addoonka uu la hadlayaa hadalka addoonkiiyo rabbigiisa dhex maraya makhluuqu maqli maayaan malaa'igtu maqli maayaan muqarrabiintu maqli maayaan waa laga qarinayaa waxa uu ilaahay qirsiin doonaa dunuubtii adduunka dusheeda addoonkan uu ku qarsanayay baa ilaahay u sheegi doonaa markaasuu ilaahay odhan doonaa addoonkaygiiyow dembigii caynkaas iyo caynkaa ahaa ee maalin heblaayo halkaa aad ku samayseen ma xasuusan tahay markaasuu leeyahay markaabuu ilaahay odhan doonaa adduunka dusheedana waan ku asturay maantana waa kuu dembi dhaafay kitaabkiisaa gacanta midig laga siinayaa deedna xaggaayo jannadu u ordaya markaas allah inaga dhigo kuwaas midaan dembi lahayn muu inagu jiraa may macsuumiin ma nihin dembi uu naga dhacayaa laakiin naxariista ilaahay baa ballaadhan ilaahay naxariistiisaan rajaynaynaa mar walba ka quusan mayno dadkana ka quudin mayno naxariista ilaahay dadkana ka quusin mayno muuminka markaa kitaabka la siiyo ehelkiisii buu ku noqonayaa ibnu cabbaas radia allaahu canhuma ayaa yidhi mid kasta oo kitaabka gacanta midig laga siiyey xawraadiisii baa iridda u taagan oo sugaysa markaabuu daymoonayaa daymashada oo keliya ayaa qaadanaysaa la yidhi 70 sannadood caruuska habeenka ugu horreysay xaaskaaga lagu soo hooyo 20 daqiiqa saa ma u eegi kartaa waar maxaad naga eegi bay ku odhan indhahay faraa kaa gelin maxaad ya yani maba haleelaysid ba adduunka dusheeda 20 daqiiqo qurux intaa la egoo la eega dadka adduunka jooga ilaahay maba siinba fa maxaad u malayn gabadha 70 sano aad daawanaysid quruxdeeda iyo jamaalkayga ibnu cabbaas wuxuu yidhi laakiin ayaa daawan doona ma taqaanaa waa ka adduunka intuu joogo maxaarimta indhihiisa ka laabta kaasaa xuurlacaynta daawashadeeda ku raaxaysan doona waqul lilmuuminiina yaguduu min absaarihim udaymoon saasuu u daymoon muuminku 70 sannadood tucaaniquhu wa yucaaniquha ku boodi marka iyadna way ku soo boodi mucaanaqada waa qooroqooraynta mucaanaqadoo keliya buu ibnu cabbaas haddana 70 sano kale haddana haysan buu sidaa unu haysan markuu jannadii arka naciimteedii 4 shay oo adduunyada inta la joogay qofka bini aadamka nolosha ku qaraaraynaysay ayaa ahlal jannaha maskaxdooda ku soo dhici doona waa afartee waa geeridii waa gabowgii waa baahidii waa bogtaantii afartaabaa maskaxdooda ku soo dhici doonta ma naciimka intan la eg ayaa ilaahayna siiyey markaasay afartaa xasuusanayaan baa la yidhi xagga saraa laga dhawaaqi oo la odhan doonaa yaa ahla aljanna inna lakum an taxyow falaa tamuutuu abada yaa ahla aljanna maanta laga bilaabaa jannadan waxaad ku dhex leedihiin nolol daa'ima dhimasho dambe arki maysaan nicmad joogto ah oo nuqsaan dambe aanan lahayn dhallinyarnimo gabow dambe aan lahayn caafimaad qab xanuun dambe aanan lahayn allah ina siiyo jannadaasaa ilaahay inoogu
باقيا مالين والبا ولقولي هي صلاة مركا تكنيسو مؤذنكو كلية حي على الصلاة حي على الفلاح جنة إسهر كان جنة كو حسابتهم بشير رمضان باسوق شيء جنة إسهر كان صدقات بابيحي لقالي هي جنة إسهر كان قرآن بالقولي كالي آخري جنة إسهر كان آخرة وحبحي بالقولي هي جنة إسهر كان مركب النبي عليه الصلاة والسلام مجلس كيسي سوق معلم فرديا أي نمكي مهاجرين تي مكة كسو هجرودي أي سركعوا النبي يكوي رادين نبي الله مقالة مكة أنكو أنك إيمانين كسو بحني ما زمزم بانكو هايسنو إيما هين هل كان بيه وإيم مقالة مدينة عيلشنا نمن يهودا انت بدن اسكا هايستا لعقان كو يبسننا ما هايسنو marka ninkii ceelka bi'r ruuma laha ayuu nabigu u tago wuxuu ku yiri asxaabtayda muhaajiriintayda biyaha u fasaxa ka cabaane markaasuu u fasaxi maayo oo anu ceelka yar baan leehayo biyaha yar baan iibiyayo reerkayga ayaan ku biiliya marka buu nabigu ku yiri bi'nihi bi'ayn fil janna il jannada ku taala ceelkaaga ku bedelo ku iibso markaasuu yiri may ceelkayga yar iska iibin maayo iska kaydaab u kay عثمان بن عفان رضي الله عنه وذكيها وعقل بدنا وإنشي سميل در وحكا أركايي وبصير إلى هاي أوسيي أي هذا النبي قلبي قيسا كل بعي بعنيه بعين الجنة الجنة دا كنت على عيلك إيقا إيبسو مرقابو نيكي إسكدي دا نيكي عيلك لها عثمان بان نيكي وتقو يري عيلك آقا هدي لغاير هذا العكو إيبي ما إيبين لهاي هاوان إيبين لها واي قرقر ثمين مركا وحيكو هشيين صدن كن أو درهم عثمان لعقتي بسوق هذا أودجي عيال كفوري سيقول صور يجيبوا كيل وكسوقات رسولك عليه الصلاة والسلام بوك نوح كيري يا رسول الله عيالك بئر روما هدي أن كانوا إيش جنة كنت على إنك الله بلغ هذا إسكدي دي أنا كما لي بلغ هذا يا مرقاب النبي يقول ها مرقاب عيال كفوري سواكا أصحاب هذا ووقفوا يا عدنا صدام بقول عيالك هذا تلبيسه ووقف هل استعمال برسول الله مركب النبي فرحي عندها النبي مركب كرو قادو وحيري عثمان إله رالي ما كان نقدر رالي كان نقو عثمان ما أنت لقى بلا عمل دم بهدون السمين با أنت أبو جنة كو قلب رسولك يري بعنيه بعين الجنة إن درجات دت كاسها سماه يا بس سياسي صلاة أتوكلين بالقرن إن درجات ويانو كنتم كسنة سوا صعدة إسبدل كجيس كأفريقيا كفال الله ضايق دقيستا إذا عادين تقول سوف يصير يا الله عقلك آخرة كنت سني ويا عقل ما نلا الشدم بعقلك كو جيدي ويا عقل ما أرجو هذا آخرة كو أركي ويدا كل حساب تبي ويدا أرك صح ما جنة هدي مغلان أصحاب رسولكم وهي هيان الكابس كدقية جنة مركا جنة داسان سور دقينا مركا صوم إنه صلاة إنه صدقة بحنا إنه زكاة بحنا إنه والد كوسا مفلا إنه جنة نبى النبي قوي مدوي الجهاد بن ربع وين الجهاد بحدا تمدها جنة دون زها جنة دون يا نبي الله وحكى لما دون يو لما دادي والد من نول يهين ما هو يا نول ما يدو كار راليا تمدي مسيدو سفر كاغا ان رالي كاهين ما يدو اويسان كايمدي مرقابو النبي يقول سو جنة وما سعودها ويدا كن نقول لugteeda qabso halka baad jannada ka gali doontaa adigu yeey الزم رجليها ثم الجنة النبي ثم الجنة lugteeda qabso jannada halka baad ka gali طاعد إلهي مركات قدنيسو waxaad soo dhigaysaa waa janno macsi markay naftiga shaydaanku kuugu yeedhaan ee shaydaanka iyo naftu ay ku yiraahdaan ilaahay caas oo dambiga samee oo waxa ku dhac markay naftiga shaydaanku ku yiraahdiin waa inaad soo dhigtaa ilaahay cadadiisa soo dhig inna batsha rabbika la shadid inna rabbaka labil mirsad ilaahay ku xisaabtin cadadiisa ka cabsi naftaada markaas marka labadaas la doonaya ilaahay inaan ku caabudno tama'an khawfan wa tama'a cabsi iyo rajo cabsida goorma la rabaa waa intaad caafimaadka haysid
eed nolosha haysid eed dhallinyarada aad tahay eed amniga haysatid ilaahay cabsi ku caabud maalintaad heer xanuunsatidna ama xaalad adag ay kugu timaado ilaahay raxmadiisa rajiye markaas oo haquusan oo waxaad tidhaahdaa naftaada waxaad ku tidhaahdaa rabbigay waa naxariis badane waa deeqsi badane waa kariim weeyaan ilaahay waa kariim kaad la shaqaynayso waa kariim sidii ninkii xajka u socday mar alle markuu ixraamkii u xidhay ayuu maqlay ayuu yidhi labayk allaahuma labayk markaa dushiisaa laga leeyahay laa labayka walaa sacdayk xajka aad u socoto lagaama aqbalin safarkaa aad u xamaan qaadatayna ilaahay kaa aqbali maayo iska joog hadal baa dusha kale dhawaaq mid isaga gadaashiisa joogaa hadalkii la maqashiiyey kii baa ku yidhi yaa sheekh maxaad ka xajin adigu labayk allaahuma labayk markaad tirahdaba jawaabta maad maqlayn markaa wuhi maad maqashay haa waan maqlay ma haddaad maqashay haa haddaan maqlay wuxuu idhi 27 sano ayaan ilaahay gurigiisa u soo qasday mar alle markaan xajka aanu ixraamka soo xidho ee talbiyadda soo bilaababa laa labayka walaa sacdayk baa layleeyahay oo waxaa dushayda laga leeyahay xajkaaga cimradaada sacyigaaga cibaadada aad u socoto ilaahay kaa aqbali maayo baa layleeyahay ee iska joog baa layleeyahe haddaan gurigiisa ka joogo oo socodka aan xaggiisa u dhaqaaqay aan ka joogo xaggee kalo oon tagaa bal ii sheeg buuhi adaan tala kaa qaadana bal ii sheeg buu ka yidhi may jirtaa meel kale wuxuu yidhi ama ha lay aqbalo ama yaan lay aqbalin anu ilaahay baan u socdaa xaggiisa buuhi meel kale uma socdo ka quusan maayo ilaahay raxmaddiisa waa kariim waa raxiim waa raxmaan waa xaliim waa sataar ceebteedno dhan buu qarinaya maanta dulqaad badane war ma cadaaladda ilaahay baan ku joogna adduunyada baa la yidhi satriga iyo dulqaadka ilaahay baan ku joognaa satr asturkiisa ilaahay baan na asturaya ilaahay baa noo dulqaadanaya laakiin haddii cadaalad la eegi lahaa acmaasha jidhkeenna maanta ka soo fulaysa iyo cisyaanka aan ilaahay caasinayno iyo sida macaasida waddooyinkeenna maqaaxiyaheenna guryaheenna ilaahay loogu caasinayo daqiiqad adduunka inaan ku noolaano xaq uma yeelaneen maanta 27 sanaan maqlayaa buu yidhi oo laygu jawaabaya oo layleeyahay ilaahay xajkaaga kaa aqbali maayo iska joog dee maan joogaa ka joogi maayo waan socdaa buuhi waryaa u yimiday dawaafkii buu bilaabay sacyigii markuu dhammeeyey ayaa dushiisa laga dhawaaqoo la yidhi labayka wa sacdayk waan ku aqbalnay waan kaa ajiibnay 27kii hore ee xajidayna ilaahay waa kaa aqbalay baa lagu yidhi kii baa la maqashiiyey marka hore maqlaayey markaa buu yidhi sheekh waa lagu aqbalay wuxuu yidhi albaabkiisa mahayna albaab kaloo garaacaynaa ma jirta buu ka yidhi ma quusanayna annagu ilaahay baan haysanaa marka ilaahay raxmaddiisa ka quusan mayno dadkana ka quusin mayno bal ummadda waan tarqiibinaynaa waan u naxariisanaynaa dacwadda ayaan ugu yeedhaynaa dacwadda markaan ummadda ugu yeedhaynana waan u dhibrinaynaa bucithtum muyasiriina walam tubcathuu mucasiriin xadiidkaas siduu ku yimiday nin caraabiya ayaa masaajidka nebiga dhexdiisa cawradiisii intuu la soo baxay ayuu masjidka nebiga dhexdiisa ku kaadiyey saxaabadu markaasay ku yaaceen markaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam waar ka joogsada markaa buu nebigu saxaabadii ka joojiyey markaa buu nebigu ku yidhi waar ka joogsada kaadida ha ku goynine ka joogsada halkuu ku kaadiyeyna biyo ka badan ku shuba buu yidhi isagii buu nebigu markaa u yeedhay ii kaalay adigu markaasuu nebigu fadhiiso ka yidhi u fadhiisiyey masaajidkan ilaahay baa leh waa meel ilaahay lagu caabudo salaadaa lagu tukadaa qur-aankaa lagu akhristaa tasbiix iyo taxmiid iyo takbiir baa loogu talagale ee maaragtaane wax kale masjidka looguma talagelin isagii baa ka sheekeeye oo yidhi wallaahi ima dhibsan oo ima dilin oo ima aflagaadayn macallin isaga lamida hore uma arkin dib dambana u arki maayo wuhi macallin isaga lamida ilaahow aniga iyo maxamed noo naxariiso cid kale ha noola naxariisan buu ka yidhi
saxaabadiisii buu nabigu ku yidhi halkuu ku kaadiyey biyo ka badan ku shuba innamaa bucithum muyasiriin bucithum waxaa adduunka laynii keenay oo laynii soo saaray inaad dadka xaqa u dhibrisaane inaad ummadda xaqa ku adkaysaan adduunka layniima keenin buu rasuulku yidhi bictha walaqad bacathnaa fi kulli qaryatin nadiira wamaa kunna mucadibiina xataa nabcatha rasuula bictha kalimatu lbictha qur-aankay ku taallaa waa alfaadda ilaahay si gaara markuu uu tilmaamaya nebiyada erayada nebiyaduma loo adeegsan jiray ijtabaa istafaa iyo bictha waa kalimaadka nebiyada khaaska u ahaa laakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii buu ku leeyahay innamaa bucithtum muyasiriina walam tubcathuu mucasiriin in kale maahine adduunka layniima soo saarin haddii layni soo saarayna rabbulciza wuxuu inii soo saaray inaad ummadda xaqa u dhibrisaan ee layniima soo saarin inaad ummadda markaad xaqa u gudbinaysaan aad ku adkaysaan ribciya bna caamir saxaabigii jaliilka ahaa rustum markuu u tegayna waa kii ku yidhi rustum allahu ibtacahanaa ilaykum annaka ilaahay baa nookii soo saaray buu ka yidhi war qofka muslimka walaalayaal muslimo waa inaad fahamtaa ilaahay baa ku soo saaray ilaahay baa ku doortay oo maxaa ilaahay kuu doortay diinta islaamka inaad ku dhaqanto ood barato ood ka shaqayso oo diin ku noolaato oo diin ku dhimato ayaa adduunyada lagu keenay hadafkaaguna u noqdo inaad janno hesho ansaar markuu nebigu la mubaayicoonayay ansaar waxau nebigu ansaar ay ku wada ballameen baycat alcaqaba markay dhacaysay yaa rasuul allah annagu waan ku qaadanaynaa bay ku yidhaahdeen madiinat almunawara waan kula tegaynaa sida naftayada cadowga aan uga difaacno een ilmahayaga cadowga aan uga difaacno ee reerahayaga cadowga aan uga difaacno ayaan adigana cadowga kaaga difaacaynaa waxaanan ognahay haddaan magaalada madiina kula tagno caalamkao dhan dadka ku nool ayaa dagaal nagu soo qaadi doona difaacaaga inaan ku dhammaanana diyaar baan u nahay dhaqaalahayagayna inaan adiga kugu bixinno diyaar baan u nahe ma laga yaabaa nebi allow maalinta ilaahay diintaada uu muujiyo ee guushaadii ay daahirto ma laga yaabaa inaad naga soo noqoto oo maka ku soo noqoto markaa buu nebigu yidhi ha ka yaabina buu yidhi halkaad ku noolaataanna waa ku noolaan buu nebigu yidhi halkaad ku dhimataanna waa ku dhiman halka dhiiggiinnu ku daatana waa ku daadan dhiigaygu rasuulku yidhi waa bayca erayadii ansaariyi nebiga dhex maray siiraday ku taallaa addam alhadmu baa nebigu halka dhiiggiinnu uu ku daatuu dhiigayguna ku daadan halka qabuurihiinnu ay noqdaan buu qabrigayga noqon buu rasuulku yidhi inaan maka ku soo noqdaa oo tolkayniga soo raacaa ha soo dhiganina buu yidhi ansaaray waa ballan haddaad aniga maanta i qaadataan oo sida naftiinna iyo ubadkiinna iyo dumarkiinna cadowga aad uga difaacaysaan haddaad cadowga iiga difaacdaan anna waxaa nii ballan qaadayaa halkaad ku noolaataanna waan ku noolaan halka laynagu aasana waa laygu aasi halka dhiiggiinnu ku daatana dhiiggaygu waa ku daadan waana ballan buu nebigu yidhi wallaahi buu nebigu yidhi waxaan nii sheegayaa dadka adduunyada ku nool hadday dhinac ay maraan ansaarna xagga ay marto oo la yidhaahda kala dooro halka ansaari ay martaan mari buu rasuulku yidhi waxay yidhahdeen waa hagaag laakiin maxaad noo ballan qaaday oo kale noo sheeg waad guulaysanaysaa ilaahay baa guusha ku siin doona annaguna difaacaaga inaan ku dhammaano diyaar baan u nahe maxaad noo ballan qaadaysaa noo sheeg wuxuu uhi jannaa nii ballan qaadi janno maxaa ka weyn bal sheega ma odhan madax baan niga dhigayaa dhaqaalaan ini siinayaa talada dabaday ininkaa nii dhiibaya ma odhan waxau nebigu yidhi waxaas waa adduunyo ka kaalay waxau nebigu u ballan qaaday inay janno wada heli doonaan ficlan nebigu ansaar wuu u duceeyey sal alla alay wasalam gargaarka ay nebiga u gargaareen ee ilaahay rasuulkiisa u hiiliyeen ee diinta u gargaareen ayaa loogu magac daray al ansaar kuwii ilaahay nebiga u gargaaray baa loogu magac daray marka innakuna inaan diinteenna u gargaarna laynaga rabaa maanta oo aanan odhan xilka diinta culammada unbaa ka mas-uula macallimiinta unbaa ka mas-uula jamaacaddo khaasa unbaa ka mas-uula may qof kastoo muslim waa shahaadanaya diinta xil baa ka saaran inaad adiguna diintan islaamka aad ku dhaqantaa ood barataa
وواجب كسارنو إلهي باكوغو أدون صدي إن الدين تشقدي إذا أتكقيب قادتا أو مالكاغا وقتكاغا دقالهاغا عقلكاغا علمكاغا وحي إلهي صلاحيتكو قليي إن الدين الإسلام قادو حكقشتا إذن قيامها واللقو الدين دون يوقو فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين بإلهي إنه لذكر لك وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون فإن شاء الله هذا إن الدين تكشغنا وذن اليود إن شاء الله سيفي عنه هذا ده هذا نبدأ الصلاة اللوية توحيدك نمد الله قدسي ده إن شاء الله فراغ مركان هيسنو مددا أفرت بلود يا لوضع بلود يا أفرت قعيشة بيش فصحات هاي ووسائل الدعوة سيدا ما تعليم تبقى وسائل ولا ده هاي وسائل التعليم ومحي ومدارسته منهج كمدارس ووسائل ويان منهج كان علمي قال له قد قنا يا متون علم المتون علم المطولات مركز بالله قال ووسائل العلم وسائل الدعوة إمك آلات كان إمك نقضوا بيسان ووسائل الدعوة وأنا أقول لها يمديدنين لكن جماعة هنا بحضوا أو قرية جماعة كبحضوا أو قرية دتك أي برارجيان أو مقايد دتك أي وتجان أو دتك صلاة اللوجية أو تاريخ صلاة قاعد الله سوقته ووسائل الدعوة بل تاسع أصل كيه ولبنا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام آلات كان ما أنت نقول هاي سنين دعوة أو كاشنا إنه هذه آلات كان دعوة كفر ديسو نبي محمد بالسين لها لكن نظام كان نبي محمد إلهي أوسيي والنظام كقولنا تجدوا إن مركب الدين في العالم كلنا قاعد وانا نظام كي والنظام كوقف إنه الدالة إنه ها إن أدو قداشي أديك نقالة كابحو مال كابحو وقت كابحو ديك كابحو دعان كابحو نقالة كابحو ودن سيكتي هر واحد جعش هاي مركز الدين تقيمه هيجنا أتقرن ذاتك كلام الدين أتقيمه هو شيء كريم هل قصان نقصه قابل نبا وذي إنك الصوت ضمعين وجربوا امتحان وكقاضوا يقول أبو ده الله باتنجر باتهاي الله باتن كاسنو وحنا دعونا إنسان إلهي أنا يقوم بيسو ديبو بيلك ينسينا يه ما أنت وحبا ما هيو غيركي بهذي يريد وحبا ما هيانه بل وحي ريكين بوكيني ما أنت أرضو يسو حوكس سو حوكس وحيكين كاير وإنه هو ولي الشقة ما أركن الدنيا كما شقين هو يدي بوتوغو هو يلعق بان ربايا يسيبو دي مسا $10 وهو معان ويسوا صارتو ويسيسي أبيه بوي مدو ويل سو شقيه بو اسكا دغاي ابا واكن $10 هو ويل سو duceeday oo ka qaaday odayga marka gargaradaba hortiisa dab ka baxaya bulbul markaas uu qaado oo isagoo arkay uu ku rido $10 bul kiirabo eego wax isbedel yar kiira kuma iman hadana maalin dambe yiri bal maantana abawaan ku sugaya dad ducaqabaatahay oo yadi buu tago oo bal wax yarsiyo maxay $5 uu keeno abawaan ma sha Allah fariid way isagoo arkay dabkii hadana ku tuuray hadana maalin saddexaad islaantii baa tiri war lacagta bariyahan adiga gurta halkeed geysaa wuxuu aabba igu yiri bal ii shaqo tago waxii keeno deeyo wax shaqo ma garanay adigoo ma ka qaada markaabada dad muxuu ka dhigay odaygu lacagta wallahi deen wax ku falaya ban moodaya gargara hortiiso dab ka baxyo buu ku tuuray markaabada war lacag la gubaanigu ma haye orada aabaha u shaqo tago hay wareerinayga tag waryaa المهم قال حابو غوري سو راعي حابو ده لو سو غورا متى عبام سو راحو و سو غوري او كاني لعقتي بو سو هلي او كاني لعقتي بو في قيبه ليدو ابو warkaabo dhinacana uu ka haya lacagta moogta odaygana uu eegay war maxaa jiray buu maanta aaba lacagtii hore way ka duwan tahay maanta buu oo kolkaana dabka ka daaday aabo oo maxaa uga daaya tii hore wasawni ku gurayay ma tii hore hooyaan ka soo qaaday tan laakiin maanta ana soo shaqaystay ba fahamtay ma malay diin shayga qiimihiisa waxaad garan markuu dhiig iyo dheecaan iyo waqti uu ka galo hadaad waxba gelin ma garanaysid qiimihiisa
marka diinteenna macaan ilaahayna siiyey inaan shaqadeeda tababarkeega u baxno oon habeenka jimcahana markaska imanno oo masaajideennan maasha allah dhalinyar badan oo khayr badan baa ka dadaalaysa iyo macallimiin iyo culummo badane inaan dadaalkaa diinad inankuna qaybteena ka qaadano wada niyooda insha allah dembigeenna allaha dhaaf dembiga waalidiinteena allaha dhaaf